shiiqaal gandarsho waxaan leeyahay dad oo la boobi karo ama laga tirtiri karo saaxada maaha waa ku qaldantaan dhihi lahay madaxweyne cabdicasiis arrintan ka fiirso cabdicasiis maxamed laftagareen waxaan dareensanahay waxa uu sameeyey shiiqaal gandarsho aqoon uma laha asaga waxa uu sameeyey waa ku turunturooday sidaasay ila tahay aniga inuu ku turunturooday ayaan u arkaa hab 45 waa ku celinaya lagu qaldami dadkooda taagan jiritaankeena waa la ogyahay waxaan nahay waa nala yaqaanaa lafta gareeno ha ku sirmi shiiqaal gandarshe haddii hadda la keenayo shirkan jaraa'id ay maanta magaalada muqdisho ay ku qabteen odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada siyaasiyiinta beesha shiiqaal gandarshe ayay kaga hadleen boob ay sheegeen in lagu sameeyey kursiga beeshaas ay ku lahayd golaha shacabka baarlamaanka federaalk Soomaaliya waxa ay tilmaameen in kursiga tirsigiisu yahay hoob 45 deegaan doorashadiisuna tahay koonfur galbeed Soomaaliya la doonayo in loo boobo shakhsiyaad u dhow madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen sidoo kale waxay tibaaxeen inaysan u dulqaadan doonin kana yeeli doonin in kursigooda qof kale la siiyo waxaana ay ugu baaqeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble beesha caalamka iyo waliba gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleedba in wax laga qabto boobka dulmiga lagu sameeyay beesha shiiqaal gandarshe sida ay hadalku dhigeen cabdicasiis maxamed laftagareen waxaan dareensanahay waxa uu sameeyey shiiqaal gandarshe aqoon uma laha asaga waxa uu sameeyey waa ku turunturooday sidaasay ila tahay aniga inuu ku turunturooday ayaan u arkaa shiiqaal gandarshe aqoon uma laha inuu maanta na dhaco oo kursiyeena ma aragtay qola kale inuu siiyo uu damco waxa uu geysay aqoon daro hadda waxaan dhihi lahaa warniyahow isdabaqabo caanadaatay waa la dabaqabtaa isdabaqabo kursigan kursi la dhici karo oo beel kale aan waxba ku lehaynin aan aqoon lehaynin in la siiyo yacni taas mid shiiqaal gandarsho qaadanaysa ma aha maanta hoob 45 in aad adiga waxaad rabto ka samaysato inaad iska ilowdo aan kaala dardaarma haddii ilaahay yidhaahdo Soomaaliya waxay ku heshiisay calankaas iyo federaal xubin ka mid ahaan nahay calankaas iyo maamul koonfur galbeed waxaad iska ilowdaa waxa aad qoqooshayso inaad iska hilmaanto Allah ku tusiyo Soomaaliya waxay ku taagan tahay qabiilka annaga ka dhalanay lafaka baryi maayaan adiga insha Allah taala umad aanan ishaysan ha istusin dadaad adiga soo barbaarisay kursi shiiqaal gandarshe inaad ku naalootaa inaad siiso iska ilow mas'uuliyadeeda adaa qaadi doono amaamallaahi iyo annaga awooddatayna ah meeshaan beel dhisan oo jirto waaye shiiqaal gandarshe waxay leedahay odayaal waxay leedahay dhalinyaro siyaasiyiin ay leedahay waa kuraasta markii qeybaskaada la bilaabay sanadkii 1910 la bilaabay ilaa halahan waxaan lahaynay kursigan waxay leedahay saxiixayaasheesi adiga waa ogtahay lafta gareen meesha agtaada dhowr mar ayaa waxaan goora aan ku saxiixnay odayaasha saxiix leh waa taqaanaa waa isgaranaynaa hadda dad aan garanaynin oo odayaasha shiiqaal gandarshe aan ahaynin inaad darbiyaasha laga soo wado oo gandarshe matalaayaan la dhaho wax loo dul qaadan kara ma aha dhibaatadii ka imaada adaa mas'uuliyadaas qaadayso waxaa loo dhici rabaa dad oo guryihiisa jooga oo asaga oo macnaha kursiimadiisa ka qayb qaatay laakiin annaga ma yeeleeno mana qaadan doono insha Allah gabar ma naga hareysa gabar waxaan leedahay muxuu ahay wixii meesha ka dhacana mas'uuliyadaas adaa qaadaysid waxaan leeyahay macnaha joog lafta gareeno dad badan waa ku sirmata shiiqaal gandarshe ha ku sirmani kursigaas oo baydhabo ka yaalo oo madaxtinimada ku fadhiso gabdhihii keenaan nahay oo misaafadin waa lagu fadsiinaa dadka dhahay maanta inaad dadkii ku soo saqajaanto waa laga fiican yahay mudan madaxweyne waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare baaq waxa u direena shicibka oo ku nool macnaha kursigaas oo qusay hob 45 yaa lagu qaldamin aan leeyahay yaa lagu qaldamin waxaan baaq u jeedinaynaa annagoo midaysan oo bulshada dhan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda maxamed xuseen rooble waxaan baaq u direynaa guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka intaba waxaan leeyahay arrintan waa xaqdaro oo cad oo geed aan loogu soo gambanin shiiqaal gandarsho waxaan leeyahay dad oo la boobi karo ama laga tirtiri karo saaxada maaha waa ku qaldantaan dhihi lahay madaxweyne cabdicasiis arrintan ka fiirso ugu dambeyntii waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob
waxaana warbaahinta la wadaagay Cabdulaahi Balbaalow. markow waxaan u sheegaynaa guddiga doorashooyinka oo heer maamul goboleed koonfur galbeed iyo madaxweyne cabdicasiis maxamed xuseen laftagareen in ay waxa ay ku kaceen ay tahay wax aan loo dulqaadan karin oo aan ku salaysnayn heshiiskii 17 September oo Soomaali Maxamed ay ku heshiisay oo kaasoo qorayay in kursi walba reer cidda iska leh ay u tartanto si xaq iyo xalaal ah. maanta waxaan aragnay dadkii soo xulayay ergada oo la soo bandhigay in ay yihiin dad aan Sheekhaal Gandarshe ahayn. qodobka labaad waxaan rabnaa si gaar ah inaan beesha caalamka iyo adduunka iyo maxaan ku dadka ay qosayso arrintan oo ugu horeeyo guddiga heer federaal in arrinkaas arrin xadgudub weyn uu yahay oo aan loo dulqaadan karin beesha Sheekhaal Gandarshena aysan marna ogolaanaynin hawshaas oo dulmiga xadka aan lahayn ah. marka waxaana beesha ay u soo jeedinaysaa in berri wixii ka yimaado cawaaqib xumada ka timaado ma nihin dad waxyaabaha qaarkood qaata. waxaan lagu yaqaanaa dad nabad inaan nahay, dad oo culimo inaan nahay, dad soo jireen intaasoo sano waddanka yacni saasoo kale ah, dadaan la ka seenay inay waxayna qaataan wax aan u dulqaadan karna ma ahan.